baydhabo nabada jirto dagaalan ay ku jiraan dagaal ay ku jiraan garab istaaga haddaad istaagi weysaan aleedin baydhabo aan ku duulaynaa maamulka systemkaas hadda noo dhisan hadda ka hor aan magaaladaas waa difaacay 5 sano duurkan ku jira araraha haddana magaaladaas kama baxaayo hubna waa haysta waa difaaca nin alla ninkii soo weeraray waxaa iswata dagaalkii barra ka dhacay dad baa abaabulay dagaalkii ka dhacay ceel berde dad baa abaabulay dagaalkii ka dhacay maxaa la lahay hadda walweyn oo daayir aamin uu wato kuwan xamar hadda lagu laaynayo waa sifo target reer koonfur galbeed la targeysanayo taasaan aaminsanahay dhageyso xaqooda u diriraysa adiguna waxaad degan tahay baydhabo waxaad u diidaysaa yaaqbal weyn inuu tago si isku qabanaysaa hadalkaasaan kuu sheegaa shabeellada hoose iyo baay iyo boqol waa maamul koonfur galbeed waa gartay daahir aamin jeeso maamulka koonfur galbeed deegaan kuma laha nabad nolol abaabulaysaa aaminsanahay baan dagaalka ka socda ha taasaa aaminsanahay waa gartay dagaal inuu meesha ka dhaco oo hakad uu galo dagaalkan xasan sheekh uu wato oo barnaamijkan waxaa la lahayaa dagaalka shabaabka ujeedadaas inuu hakad galo waxaa u saarinaysaa nabad iyo nolol inay ka dambeeyaan sababtu maxay tahay qorshaha uu ku socdaba saas waa xildhibaanada baarlamaanka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya maanta waxa ay ansixiyeen ama meel mariyeen go'aankii dhawaan ka soo baxay madasha wadatashiga qaran oo ahaa in maamulada dalka dhammaan loogu daro hal sano dheeri ah iyagoo hal mar wada dhici doona sanadka 2024 go'aankaasi waxaa jiray siyaasiyiin ka soo horjeeda markii horeba halka kuwa kalena ay taageereen waraysigan gaarka ah waxaa iigu maanta marti iigu ah xildhibaan Idris Cabdi Takhtar oo kamid ah hadda boqorada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya xildhibaan soo dhawow markii xiga golaha wakiilada koonfur galbeed maanta waxay ansixiyeen go'aankii ka soo baxay shirkii madasha wadatashiga qaran arrinkan aad bay siyaasiyiinta qaarkood u diideen halka kuwa kale ay taageersanaayeen bal ka waran arrinka horta runtii waa aniga weli horta extension qof ogolaaday ma qof walba mandatekiisa inuu dhammaysto waaye ka bacdi doorasho la qabto laakiin waawgeed golihii wadatashiga qaranka xamar isugu yimid hal sano ay ku dareen inkastoo weli hadda aysan si rasmi ah arrintaas aan u malaynayn inay sax noqon doonto laakiin wadadii ay raaceen hadda kahor golihii wasiirada ansixiyey arrinkaasi oo koonfur galbeed haddana maanta baarlamaanka fadhiistay qof walba wuxuu iska rabaa inuu extension helo extensionna dhibkiisu leeyahay runtii inay qoladan mucaaradkana ay ugu jawaabaan markano arrimo fool xun oo ay ku dhawaaqaan inay meeshaas deegaankaas koonfur galbeed haddii waqtiga uu dhammaado lagu daro in ay dagaal qaadayaan ay iclaamiyeen arrintaasna fool xum ay la tahay deegaanka anagaa ku dhalanay waa ku soo barbaarnay waa u soo halgeynay ilmaheenaa joog qaarkood daraad hadda idaacadaha ka hadlayay runtii aadaan ugu xumaaday annaga xildhibaanaa ahayn waa weyne meeshii maamulka cabdicasiisa markaas koonfur galbeed xildhibaanada xulisteeda asagaa iska lahaa iyo guddigiisa doorashooyinkii dadkii loo diidayaan ka mid ahaa aniga laakiin hadda dhib uma arki dagaal ma weli wax walba waxaa lagu dhammayn karaa wanaagaa lagu dhammayn karaa heshiisaa lagu dhammayn karaa in la soo fadhiistaa lagu dhammayn karaa xildhibaan haddaan ku weydiiyo maamulkan cabdicasiis maamulka ugu waqtiga dheer ma la dhihi karaa koonfur galbeed marka la eego maadaama waxaa jiray baarlamaankii asiga hal sana ay kala horreeyeen halkii sana loogu daray hadda mid kale loogu daray xilhayntiisa meeqay noqonaysaa nin baarlamaankan waa la socotaa maxaa la maamulkan Jubbaland 12 sano iska haystaa meesha runtii waxaa fiican in la wada hadlo mucaarad iyo muxaafad waa tii la heshiisiyey oo madaxweynaha uu tagay baydhabo dhowr maalmood uu ku laabtay iyo gudoomiyaha shaacada madoobe heshiisaa lagu soo kala tagay mucaaradkii qaar ka mid hadda baydhabo ay joogaan inkastoo qaar aan hadda maxaa la lahay siyaasadda ay ku cusub tahay xamar joogo oo shirar qabanayo leh baydhabo aan dagaal ugu soconaa aniga horta kuwaasaan aad u dhaliilayaa magaaladaas baydhabo waxa loo soo maro waa la ogyahay waa 30 ilaa iyo 3 sano hadda la soo dhaafay dagaal sokeeye ku jirta mar waxaa soo weeraray niman SBM la dhahayo Cumar Jaas haysto oo wal loo dhahaa mar waxaa soo weeraray SNF oo jabhad ahayd mar waxaa soo weeraray Salbalaarti haddana dadaa waxay abaabulayaan in magaaladaas haddana maxaa la lahay la weeraro maamulkaas sidii daraas hadda kor dagaal inuu dhacay waa la socotaa markii oo ay niman siyaasiyiin meesha ay tageen waa laga heshiiyay taas hadda wada hadal furan haddana waxa waaye arintii golaha wada tashiga weli baarlamaankii oo federaalka lama horkeenin in laga hor dhacana maaha
in la dhaho maxaa lalahay haddii waqtigii uu dhammaado wax ku darsado meeshaas dagaalan ku qaadaynaa ay yidhaahdaan dad xildhibaan soo mariyo aan arkay inay caruurtooda ay dibadda geysteen deegaankaas dadka jooga deegaankaas dagaal diyaar u maha aniga dagaal haddii deegaankaas lagu qaado dadka difaacaya laakiin maamulkaas aniga wuxuu ka mid ahaa dadkii xildhibaanadii oo loo diiday inay federaalka galaan maamulkaas ninka maxaa lalahay madaxweynaha ka waxa waaye aniga xildhibaanadan hadda mucaaradka ah aniga iyaga waan loo wada macnaha waa dadkii loo diiday ahayn laakiin hadda ma rabi waddankayga inaan dagaal ku qaado sidii aan xal ku raadin kara inaan raadiyey waaye marka maanta waa maqlay inay golihii wada tashiga oo arrintii ay ku dhawaaqeen ay baarlamaanka koonfur galbeed ayagana ay ansixiyeen hadda ka horna golihiisa wasiirada ay ansixiyeen markaan waxaa fiican siyaasad xal la gaari karaa mehe in la raadiyo dagaal la raadiyo taasaan kasoo horjeedaa nimankan abaabulka oo xamar joogo oo runtii ku dhawaaqayo mar walbaba carabkooda baydhowaan weeraraynaa daraad wixii ku dhintay waa la ogaa waa la heshiiyey hadda mucaarad qaar ka midaa tago waa soo laabtaan laakiin waxyaalo badan oo aad u xunay aan dhegahayna maqlayo oo personal attack ah oo qof shaksiyadiis la caynaayo magaaladii la leeyahay magaaladaas maxaa lalahay abaabulaan wadnaa ciidan aan diyaarinaynaa daday la xiriirayaan waxaa waay fidna ninkii abuur asagaa la qabana anaga waxaan diyaar u ahay inaan ka difaaco dalkaas dagaal dambe inuusan ka dhicin dagaal hal jiha kugu furan jihada kugu furan dagaalka kaas qaad war maalin walba dadku dhimanayo hal maalin inay yimaadaan xataa ciidamada ma dhiirigelinayaan hal looro sokor xataa uma geynayaan markaasay xamaray joogaan asagoo raadinaya inuu xil meeshaas ka qabto ama madaxweyne ka noqdo ayaa wuxuu abaabulayaa dagaal waxa waaye waa lasoo qaadayba dagaalkii waa la socotaa baraa waxaa ka dhacay may waa ku dhamaystiraa baraa waxaa lalahay dagaalaa ka dhacay inkastoo weli la xaliyey laakiin arrintooda guddi loo saaray aan baarlamaanka waxba ka qabanin dagaalaa ceelberde ka dhacay koowa laweyn uu ka socdaa xamar dadaa lagu xasuuqay oo kuliyadda jaalisiyaad ah ogtahay 39 qof oo koonfur galbeed ka soo jeeda habeen walba xamar dadaa lagu dilaa dadka la dilaayo inuu dad koonfur galbeed ka soo jeedo waay waxaas waxa waay ku talagal dagaal sokeeye la dhaxdhigaayo waay dadkii waxa waay waa la socotaa maxaa la ganacsado weynaa lagu dilay magaalada muqdisho nabadoon weynaa lagu dilay ganacsadaha magaciisa isaaq garawal sugi ganacsadaha isaaq garawal la yiraahdaa malaaqa la dilay waxa waay salaad cali allaha waa magaalada lagu dilay waxaa la dilay nin macallin dugsi quraan la dilay bajaajliyaal la dilay dad nin oo ashraaf ah la dilay shalay markan laakiin dilka xamar waa loo sameeyay sugi ha loo sinaado laakiin maxaa anaga kaligeena target naga dhigay ay Soomaalida kale ugu dhiman weyso waa fahandino way target 39 qof hal meel oo maxaa la leeyahay qarax loogu sameeyay laakiin ka badan oo Soomaalida kale Muqdisho ku dhimatay dhageys waran ku sheegaa dhageys annaga waxaan aragnaa nina hadda koor barraawo ka hadlay wuxuu dhahay barraawo 10 sano hadda koor aan al-shabaab ku xoreeyno dhahay 10 sano hadda koor ma ku lahaanaysaa meesha daahir amiin jaas hadda maxaa ku jira walweyn wuxuu degan yahay hiiraan uu degan yahay waa la socotaa deegaanka uu degan yahay maxaa la lahaay barra waa meel 10 kilomitir u jirta al-shabaab haysto lug jeelow iyo jaambure iyo dhulkaas dhan oo deegaankii asaga u deganaa muu xoreeyo dhageyso muxuu ka soo raadinaa inta macawisley oo reer hiiraan ah intuu soo wado al-shabaab tuulooyinkii ay deganaayeen ee deegaanadii ay haysaan soo maray asagaa u malaynaa inuu xiriir la leeyahay wuxuu leeyahay al-shabaab aan inta ka xoreynaa al-shabaab uma socdee hadalkiisa markuu yimid degmada walweyn yaaq birweyn u istaag wuxuu dhahay deegaan iyo dal baan raadinaynaa dhageyso deegaan umaha ma degano dadka degan asaga maaha asaga laftiis maaha dadka degan waa Soomaali meel walba isla degtaa war fiiri gaal jecel baydhow xataa waa degaa waa xildhibaanada koonfur galbeed ay ku jiraan asaga shaqa kuma laha asaga waa reer hirshabeelle waa hiiraan waay dadka deegaankaas dhageyso war aniga qabiilkay walweyn aniga qabiilkay beledweyne waa degan yihiin tuulooyin kamid ay degan yihiin aniga ma dhahay maxaa la dhahay intaan ciidan aruursado oo deegaankaas anaa iskale ma dhahay marka ninkan oo deegaan dhageyso xaqood u diriraysa adiguna waxaa degan tahay baydhabo waxaad u diidaysaa yaaq bari weyn inuu tago si isku qabanaysaa hadalkaasaan kuu sheegaa shabeellada hoose iyo baay iyo bakool waa maamul koonfur galbeed waa gartay daahir amiin jeesow maamulka koonfur galbeed deegaan kuma laha deegaankiisa waa kaas waa la haystaa guriga uu degan yahay reer xasan barkama aargaduu degan yahay 10 kilomitir meel u jirto oo runtii oo jaamburmiya iyo baara iyo dhulkaas al-shabaab haysato dhulkaas ka soo xiray al-shabaab kadib
maxaa lahay ciidana jiro meeshan annaga hadda ciidanka annaga aan maxaa lahay koonfur galbeed ka tirsan dadka aniga ehelkayga qaraabadayda galmudug ay ka dagaalamayaan waa federaal waay macawiisley maaha dhagaysi waran kuu sheegay ciidamada federaalka meel walba ay ka dagaalami karaan ani ciidamada federaal nin kamid ah waa tagi karaa maxaa lahay deegaanada gobolka Baay Bakool iyo Shabeellada Hoose waa federaalku wuxuu ka wada dhaxeeyaa Soomaali dhan waay ciidan federaal waay ciidan booliis federaal waay laakiin dhagayso daayir amiin jeeso macawiisley hiiraan degan oo soo watay wuxuu leeyahay maxaa lahay waxaan xoreynaa maxaa lahay degmada walweyn dadka degan waa dad isjecel waa dad isla jooga oo nabad ah oo u diyaar garoobaya inay difaacaan dhulkooda waay dadkii asaga ulajeedo kale ma laha markuu meesha yimid wuxuu dhahay aniga dal iyo dad baan raadinayaa maxaa la dhahay isbaaru dhigtay 77 baabuur oo la tareeyaalo wuxuu dhahay $1,000 keena waa nin lacag raadinayo waay si ku ogaad waa la soo saaray idaacadaha la soo saaray shacabkii iyo dadka dhageyso markii lacagaha dadku u weydiinayay yaa la joogo goobjooga meedii hab la soo dhigay baabuurtii oo meesha checkpoint ah marka annaga aan hadalnay oo runtii in wadadaas la furaayo oo asaga weerar lagu soo yahay oo iskaga leexday habeenkii hadda wuxuu ku dhuumaystaa wuxuu seexdaa beledowlu seexdaa markan waa ku talagal waay waxa iswata dagaalkii barra ka dhacay dad baa abaabulay dagaalkii ka dhacay ceel berde dad baa abaabulay dagaalkii ka dhacay maxaa la lahay hadda walweyn oo daayir amiin uu wato kuwan xamar hadda lagu laaynayo waa sifo target reer koonfur galbeed la targeysanayo taasaan aaminsanahay waay maxaa la lahay mar walbaba goboladan oo focuska maxaa la lahay oo ciidamo aan deegaankaas ahayn u joogaan runtii waxa waaye buundada weyn oo afgooye maxaa la lahay iyo meeshan baar Ismaaciil iyo dad deegaanka ahayn cashuur isaga qaata waa faantino ninkan kale oo barra waa ka soo hadlayay 10 sano hadda ka hor al-shabaab meesha ku xiray oo ciidan ku haysto isbaaro u jooga waa dad isbaaro rabo inay lacag ka qaataan waa dadkaasna waxa waaye waa dadka hadda waxa maqlayn kuma malaayiin dollar ay ka tacbadeen dhageyso xilligaas xagee jirteen hadda dawlad federaal ay jirto haddaysan dawladda federaalka jirin annaga systemka dawladeedan aan tixgelinayna maana waa iska dhicin karna hadda kor baa ka soo saaran intayna soo weerareen baylow soo weerareen oo Bakool ay tageen oo dawlad sal balaara la wada la dhahay dadkii xoreeyaan ka mid ahaa haddana waxaan u diyaar u ahay inaan xoreeyo aan ka xoreeyo nimankaas deegaankaas isbaarada mar walba dhiganayo iyo kuwa mucaaradka isku sheega oo deegaankaas aan haba yaraatay ilmahooda joogin oo baydhabo rabo inay dagaalan ku qaadaynaa haddii hal maalin lagu daro doorashada qof saas dhahay nin koonfur galbeedan dagaal ku lahay deegaankaas ma balaha ana taasaan aaminsanahay hadda koorba annaga markii la soo weerarayay oo ciidamo cumar jaas u wato dad deegaan oo deegaanka anaga sheeganayo ay wateen kasoo tag salbalaar xilligeedii dad deegaanka sheeganaya maxaa la lahay oo xogo lacag la soo siiyay horkac marka sideedaba waa la helaa fiiri qof dadkiisa maxaa la dhahay runtii dad u soo hogaaminaya mar walba waa dhacda waana gacan ku qabanaa waana runtii waa la dagaalamaya xilliban kula kaftamo koonfur galbeed ka soo jeeda deegaan ahaan waxaad sheegataan marka laga tago saddexda marka laga tago Baay Bakool iyo Shabeellada marka laga tago aniga 10 gobolan degnaaba adiga hadda deegaanadaas sheegataan deegaana 10 gobolan degnaaba xamar ama kula deganaa okay 10 gobol waxaad rabtaa inaad sheegato deegaan ahaan u sheegato dadka kale maxaa ugu diidan tahay dhageyso waan ku sheegay adiga daayir amiin jeeso wara maxaa la lahay dadka deegaanka hadda ciidamada la joogo dadka asaga uu sheeganayo ehelkiisa ninkan deegaankeena ma aha ay leeyihiin waran ku sheegaa dhageyso ciidan uu kansaday aad u tiro badan wuxuu soo dhaxmaray deegaanadii al-shabaab ku soo dhaxmaray xoogu ku jooga meesha xooga laga saaray anaaba arkay anaaba waliba hadda ka imaadeen haye dadka hadda rabo inaan la dagaalano oo jidkaas ninkaas isbaarada dhigtay dadka la dagaalamaya kamid ahay baan marka waxaad rabtaa nin deegaanka iyo dadkiisa dhex joog inaad la dagaalanto dadka deegaanka ba diidooyba idaacadaha ma dhageysatay miyaa xalay habeen hore ninkan anaga waa nagu soo duulay leeyihiin waa faandino ninkaas ku laabtay meeshuu ka yimid waa hiiraan uu ka soo galay south west koonfur galbeed shaqo kuma laha wuxuu u yimid meeshaas waa nin maxaa la dhahay isbaaro rabo inuu dhigto waa nin rabo oo barnaamij oo waxaa jiro oo maxaa la dhahay dawladdan dhexe oo runtii hadda jirto oo xasan sheekh maxamuud uu madaxweyne ku yahay oo runtii systemkeeda hadda dagaal kula jirto in dagaal kale lagu furo waa qorshe
oo dibadda lagala soo shaqeeyay laakiin ma malaysaa siyaasiyiinta koonfur galbeed in marka la eego daahir amiin jeeso waa la socotaa waxaa baro farmaajo ahaa waa fahamteen oo meeshaan siyaasadda la isku haystaa nabadii nolol ahaa nabadii nolol abaabulaysaa aaminsanahay baan dagaalka ka socda ha taasaa aaminsanahay waa gartay dagaal inuu meesha ka dhaco oo hakad uu galo dagaalkan xasan sheekh uu wato oo barnaamijkan waxaa la helaa dagaalka shabaabka ulijeedadaas inuu hakad galo waxaa u saarinaysaa nabad iyo nolol inay ka dambeeyaan sababtu maxay tahay qorshaha uu ku socdaba saas waa sababtu maxay tahay nin hiiraan degan deegaankiisa laga haysto guriga uu degan yahay 10 kilomitir meel uu jiro laga haysto uu soo raadinayo koonfur galbeedaan xoreyna al-shabaab ka xoreyna waa waxaas wax aqli gal marka intaas ka ciidan military ma aha asaga ciidamada military meel walba Soomaaliya waa tagaan aniga dadka deegaankeena goboladaas waxay dad ku dagaalamayo oo horkacay madaxweynaha jamhuuriyadda ilaan taliyaha ciidanka asaga waa markaan jeesow meeshu wuxuu u yimid waa ku talagal burbur Soomaaliya uu rabo dawladda dhexe waa maxaa la dhahay nin mashaariic soo qaatay waaye laakiin gacan adag aan ku qabanay waa gartay inta markaan kala gudubno amniga koonfur galbeed marka la eego ayaa toddobaadyo ka hor waxaa jiray khalkhal amni inuu soo galay wati al-shabaab ay sheegeen inay go'doominayaan mar dambe maamulkii koonfur galbeed uu sheegay wada hadal in la galay oo wadooyinkii dib loo furay bal arrimaha koonfur galbeed xog dad naga siiso والله مقالة بينو أني أنا نمدو مقالة مشهور دور 8 سنة وحول لكم مدينة مقالة لكن أجار كذا مال تولين مقالة كم بحثا مال والبديجان كمينا وحواي بنان كذا هذا حمر كم بحث بل على أنتي كذا أفقو إذا أنا قف مسؤول أنتي كذا مال والبدي ما كاس أو حرام تاعي ما كاس إلا لدى قال لمنا ما مر كونفور قلب بورة مركو إس أبابلبة وحواي علات كلا الوفرة عيل بردا وحكنا عي فرا وحكنا عي والوينة وحكنا عي محل لها أسجع وحواي نمر معارضة على العقل الصوصية وحواي أنا معارض كاس إني وذا الشقيان الشباب كانوا أمرينا لكن دخل مرة وماها ودنك إلا دفاع مرة وان كما شقينا يعني دفاعي ودنك وحي كشقينا يعني runtii systemkaas meesha jiro ayuu rabaa inuu kursigaas ku fadhiisto oo dad ku dhameeyo oo mashaariic lagu soo siiyay waa shaqada oo aamin daahir aamin jeeso wada waa xildhibaan waaye hadduu rabo inuu tuuto gashto oo la dagaalamo xasan sheekh agtiisa ha tago gobolka maxaa la dhahay hiiraan ha ag istaaga cali hebel jeyti markaan ma aha inuu koonfur galbeed yimaado oo koonfur galbeed aan shabaab ka dhicina waay uu shabaabku u dagaalamay waa soo dhaxmaray bay adaan ku weydiinaa shabaab uu soo dhaxmaray shabaabku wuxuu la dagaalamay xildhibaan gabagabada waraysigan soo gaarnay isbaaridiisu waxay taala يقبل وين لامي يتعلى هبينكن واكسر حلايا وحو آلائنت ولجيد كلا موضع عيدما هذا كور ماشى جوجي جري والله قاعد دتك الديجان كاس اسكح ريال ودب وكاني وقت قبل يعني سو غارني دولة الصومالية marka la eego hadda waxay wadaa dadaal ku aadan la dagaalanka musuqmaasuqa siyaasiyaad tahay wax badan dalka soo joogay dawlada kala duwan la soo shaqeeyay sidaad u aragtaa in la dagaalamo waa qabaan dadka u ululeynay markii hore ahaa in musuqmaasuqa waxaad arkaysaa nin oo hadda wasiir laga dhigay dabaqii taaganaya guri ani aan deganahay hadda xamar ninaan iskale wasiir ahaan jiraa lagu leeyahay waa guri 10 dabaq waa maalintii 1000 qof oo shaqaale ku jiro lacagtaas intuu ka keenay kuwaas in la xisaabtan waayo kuwa hadda oo agaasimayaasha iyo xisaabiyaasha oo runtii oo sida hawsha fulinta wada maaragt waa ayaga waa haddii la soo qabto waxay sheegayaan dadkii arrintan ay soo dhexeeyay sheerka wada qaatay ayaga dhan waxa waaye jidkay ku soo diraan in la qaban doono umaleeyaa waa ku raacsanay xasan sheekh inuu la dagaalamo Soomaaliya sida hadda loo wajahay ka waran aad iyo aad u fiicantay waa raacsanay nin alla ninkii 100 waagi dawladda dhexe 100 nin dhaca la diri jiray Soomaali wax waa dhacay ma jirin tuug ma jirin hadda qof walba xil hal dhiibo kan hadda rabo mucaaradka inuu inta ka tago koonfur galbeed oo baydhabo tagay inuu wax dhaco rabaa bas wax kale ma rabo kursiga waxa loo doontaa in wax lagu dhaco in wax lagu dhaco u doonaa aniga markaan waxa u sheegaa baydhabo nabada jirto la dagaalan ay ku jiraan dagaal ay ku jiraan garab istaag haddaad istaagi weysaan aan leedin baydhabo aan ku duulayna maamulka systemkaas hadda noo dhisan oo wasaaradahaas dhisay oo horumarinta ka socoto oo aad arkaysid guryo qurux badan oo wasaaradaha ku shaqeynaya la sameeyay aan burburinaa nin kale hadda kooraan magaaladaas waa difaacay 5 sano duurkan ku jira araraha haddana magaaladaas kama baxayo hubna waa haysta waa difaaca nin alla ninkay soo weeraray aniga Cabdicaziz siyaasadiisa kuma jiri xil kama hay ninku xilka ka qaaday aha oo xildhibaanimadu u diiday laakiin waxaan fiirinaa in shacabkaas ilmaha iyaga joogo 15 caruur ay joogo ehelkay qaraabadeyda